بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa inoo soo hormaray su'aal ugu dambeysay xalaqadii hore oo oranayso yuu ahaa sayfullaahi almasluul nebigu saxaabiga uu u bixiyey yuu ahaa saxaabiga nebigu uu u bixiyey sayfullaahi almasluul jawaabtu waxa weeye wuxuu ahaa khaalid ibn waliid radia allaahu canhu geesigaasoo aad iyo aad dagaalada ugu gooyey cadowga ilaahay haddana waxaan gelaynaa tobankii lixaad ee su-aalaha nebiga siiradiisii la xidhiira calayhi salaatu wassalaam intii qaswo ama dagaal ayuu nebigu ka qayb qaatay calayhi salaatu wassalaam intii qaswo ama dagaal ayuu nebigu ka qayb qaatay calayhi salaatu wassalaam nebigu wuxuu ka qayb qaatay 9 qaswo ayuu ka door qaatay nebigeenu calayhi salaatu wassalaam nebigeenu wuxuu ka door qaatay oo ka dagaalamay 9 qaswo oo gaalada lagu qaaday 62 muxuu nebigeenu u aaday daa'if calayhi salaatu wassalaam markuu maka joogay muxuu nebigu daa'if ka doonay markuu dacwada ka waday maka calayhi salaatu wassalaam markii reer maka ay dhibeen nebiga calayhi salaatu wassalaam dacwadiisiina ay ka hor yimaadeen iyo diintii ugu yeerayey ayuu wuxuu aaday reer daa'if uga doontay garab iyo inay raacaan hase yeeshee meeshaa wuxuu kala kulmay dhibaato aada u weyn ilaa ay ku direen reer daa'if kuwoodii waallaa iyo carruurtii oo dhagax lagala daalay oo gondihiisa dhiig ka daatay ilaa uu geed intuu hoos fadhiistay uu malag ugu yimi oo yidhi ma labada buurood oo dhinacyada ka yaalma ku gedinaa markaasuu yidhi maya waxaan rajaynayaa dhabarkooda oo ka soo baxo dad mu'miniina halkaas ayuu ducadii geedka hoostiisa ku akhriyey allaahuma inii ashkuu ilayka dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaanii cala annaasi ducadaas macruufka oo la wada yaqaan 63 nebigu mu'adiniin buu lahaa uu ugu magac weynaa bilaal ibnu rabaax laakiin waxaa jiray mu'adiniin kale marka magacyadooda wax ka sheeg bilaal wuxuu ahaa mu'adinka ugu weyn oo nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam laakiinse waxaa jiray mu'adiniin kale oo uu nebigu lahaa oo u addami jiray marka magacyadoodii sheeg mu'adiniinta nebiga oon bilaal ahayn waxay kala ahaayeen camr ibnu maktuum ninka la dhihi jiro nin indhalaa ahaa oo suuratu cabasa awalkeed uu ku soo degay nin maxduura la oran jiray nin sacad alqard la oran jiray 64 yaad ka taqaan kuwa waxyiga nebiga u qori jiray yaad ka taqaana asxaabta nebiga kuwa u qori jiray waxyiga nebiga calayhi salaatu wassalaam nebiga waxaa waxyiga u qori jiray asxaabta kale ah علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب زيد بن ثابت أبي بن كعب عثمان بن عفان iyo معاوية nebiga ma yaqin sida wax loo qoro ama wax loo akhriyo nebigeena calayhi salaatu wassalaam ma yaqiini sida wax loo akhriyo ama loo qoro maya nebigeenu ma oqoon wax qorid iyo wax akhrin midna waxayna isaga u tahay sharaf lianna waxaa mucjizo ah inuu nin aan waxba akhrin waxna qorin uu la yimaado qur'aanka kariimka ah oo cid waliba ka caajisay isagoo kale inay la timaado marka isaga mucjizay u ahayd innaga laakiin ceeb bay noo tahay qofkaan wax akhrin ama wax qorin 66 sheeg gabayaaga weyn ee nebiga ku difaaci jiray afkiisa oo asxaabta ka mid ahaa sheeg gabayaaga weyn ee nebigeena calayhi salaatu wassalaam ku difaaci jiray ee diinta islaamka afkiisa oo asxaabta ka mid ahaa
saxaabigaas waxaa la oran jiray xasaan ibnu thaabit, xasaan ibnu athaabit. waxaad sheegtaa qofka uu nebigu ugu jeclaa dadka oo dhan, waxaad sheegtaa qofka uu dadka oo dhan nebigu ugu jeclaa calayhi salaatu wassalaam. nebigu wuxuu ugu jeclaa dadka oo dhan abubakar asidiiq. abubakar asidiiq ayuu ugu jeclaa dadka oo dhan. 68 xaasaskiisa xaaskee buu nebigu ugu jeclaa? xaasaskiisa xaaskee buu nebigu ugu jeclaa? nebigu wuxuu u jeclaa sidiiqa bintu sidiiq oo caaisha bintu abibakar ah ayuu ugu jeclaa xaasaskiisa. labadaas aan soo sheegnay oo abubakar iyo caaisha iyo xafsa iyo asxaabta badankeed, ogow shiicadu waa gaalaysiiyaan. weliba shiicadan mutaطarifiinta ah way gaalaysiiyaan, iska dhaaf inay u ogolaadaan fadliga. 96 miyay jirtaa xaasaskiisa xaas ka mida nebiga calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay uu isagu u guuriyey oo u meheriyey? miyay jirtaa xaasaskiisa xaas ka mida nebigeenna calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isagu u meheriyey oo u guuriyey? haa, way jirtaa. magaceeduna waa zaynab bintu jaxsh radia allaahu canha. zaynab bintu jaxsh baa la yidhaahdaa. suuratu axzaab baana arrinteeda ka hadlaysa. 70 ma waxaa jirta cid asxaabta nebiga ka mida oo nebigu u dardaarmay inuu gadaashiis xukunka qabto? ma waxaa jirta cid asxaabta nebiga ka mida oo nebigeennu calayhi salaatu wassalaam uu u dardaarmay inay xukunka gadaashiis qabato? su-aashaasna adaan kuu daynayaa, waxaana kaga jawaabi doonaa qaybta dambe oo soo socota. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.